sheekadii gabadhii timaha dheereed. Haya caruuray, haya Blue, ma aaminaysiin waxaan arkay. Maxaa waay Blue? Waxaan soo arkay taalo aad u adag, weliba aad u dheer, jaranjaro lagu koro xitaa ma leheen, bes wuxuu lahaa hal dariishad oo keliya. Balse waxaa joogtay gabar aad u qurux badan, aan weligeed arkin quruxdeeda. Sidoo kale ayada ma lahayd timo aad iyo aad u dheer. haa weliba aad ayaa tinteed u dheereed, aniga xitaa waxaan u malaynaya xirig inay tahay. Adiga Blue waxaad soo aragtay dabaq aad u dheer, weliba waxaa ku jirtay gabar qurux badan oo weliba tinteeda dheer. Sheekadan hore ayay u dhacday. Juu, horta adiga maxaad ka wataa? Intaa wadada sii soconaya wax walba niyaaga sheekeena, laakiin marka hore waa inaad soo aragnaa taalada. Blue, adiga mana keen kartaa meesha? haa soo baxo. Waa kana sheekada aniga hore u maqlay. Beri hore waxaa jiri jiray lamaane aad u qurux badan oo ku wada noolaa tuulo yar, balse ayaga ma aysan haysanin wax caruur ah. Sanooyin badan ayayna sugayeen inay caruur helaan. Deriskooda waxaa ahayd naag qumaya ah. Naagtaas oo mar walba samayn jirtay sixirka. Ayadan waxay lahayd beer qurux badan oo ka baxda ansalaato, sabuul iyo kuwo badan. Muddo kadib uur ayay qaatay xaaskii, waxayna jeclaatay beerta saaxirada. Ninkeygii gurigeena hortiisa waxaa ku yaala beer aad u qurux badan, waana jeclaaday. Ma ii keentid? laakiin naagta deriskeen ah naag xun waayay, cidnana muu ogolaatay beerteed inay gasho. Marka sidee u soo qaadaa? Waan ogahay arrintaas way adag tahay, laakiin aniga waa rabaa. Darteed muu samayn kartid miyaa? Ninkii wuxuu go'aansaday inuu kala beerta qumayada, uuna uu soo kooyo xaaskiisa beertaas. Wuu ku guuleystay inuu helo beertii ay rabtay xaaskiisa, wuuna u soo kooyay. Kadibna wuxuu u geeyay ayada. Ayadana way cuntay beerta. balse nasiib dara saaxiradu wax walba way ogaatay. Sidee ugu dhiirateen beerta inaa cuntiin? Anigana waxaa rabaa cunuga lagu dhali doono beerteeda oo calooshaada ku jirta, aniga inaa qaadanayo. Ayaga aad ayay midtaasi uga walwaleen. Bilooyin kadibna xaaskii waxay dhashay gabar aad u qurux badan oo weliba tinta habi ah leh. Balse saaxiradii markii ay maqashay inay dhashay, way u imaatay si ay ugu qaadato. Balse ayaga midtaasi way ka murkeen, waxayna ka codsadeen inay cafiso. Ayada laakiin kama yeelin, wayna ka qaadatay ilmaha. Qofna ma ogeen meesha ay geysay cunugtaas, balse ayada waxay geysay tuurka, waxaana u dhisay tuurka dhexdiisa taalo aad u dheer. Taaladaasna ma lahayn jaranjaro lagu koro, bes wuxuu lahaa hal dariishad. Gabadhii yareedna waxay u bixisay Rapunzel. Ayadani subax kasta waxay u keenaysay dhar iyo cunto. Gabadhii yareed markii ay weynaatay waxay yeelatay timo aad u dheer. Rapunzel! Waxaa rabaa inaan kor soo koro. Marka tintaada dahabiga ii soo tuur si aan kor uga soo koro. Sidee tahay ciyaartay? Ma fiiri sidoo hadiyad qurux badan aaba kuu kaaniye.
gabadhe qurux badneedee maxaad u murugsan tahay ma ku faraxsanan miyaa wixii kuu keeni maya hooyo waa qurux badan yihiin waana jeclaaday waa mahadsan tahay marka maxaa ku daari gabadhe aniga keliya waxaan ku fikirayay hadiyadaha ii keenaysid maxay ii taraan ilaa aniga meel maku aadaye inta haddii faraxsanaya cid farxadee lama wadaagi kari qof ii arkaysa xitaa ma lahan aniga Rapunzel ani waa kuu sheegay arrintaas mar horaan ka wada hadalnay mar labaadna ha soo celinin bini'aadana lama kulmaysid gabadhe adduunyadana ujeedid ma aha meel nabad ah dadka ku noolna mar walba khatar ayay iska dhigaa nafsadooda ayayna cadow isku yihiin taas waa micnaha aniga dadka indhahooda kaa qariyey ma irumaysanina hataani raan noqo hooyo aniga adiga waa ku aaminsanahay waad fiican tahay gabadhe ani hadda waan baxaa beriyaa kuu soo laabanaa ogow midaas waxaa jiray sultaan aad u jeclaaday codka Rapunzel mar walbana wuxuu rabay inuu Rapunzel la kulmo sultaankan wax walba meesha ka dhacay wuu u jeeday asigana wuxuu go'aansaday inuu sameeyo sida ay qumayada sameysay Rapunzel aniga waxaa rabaa inaan kor soo koro marka tintaada ii soo tuur si aan kor ugu soo koro Rapunzel waxay u tuurtay tinta sultaanka ayadoo u malaynayso inay qumayada tahay sultaankan wuxuu arkay Rapunzel adiga yaa tahay aniga waxaan ahay sultaan Jenny wax walba meeshan ka dhacay waa maqlaayay anigana waxaan rabaa inaan kaa xoreeyo taaladan dheerka badan Rapunzel arrinta uu sultaanku u sheegay aad ayay uga faraxday kadibna sultaanku uu ka laabtay wuxuuna u sheegay inuu soo laabanayo beritoole subaxii xido qumayada sidii ayay u soo laabatay Rapunzel waxaa rabaa inaan kor soo koro tintaada ii soo tuur si aan kor ugu soo koro hooyo adiga culays ayaa tahay laakiin sultaankeygu wuu khafiif yahay qof walba oo kala timaya inuu gurigan soo galo sidee ugu dhiira timid taas adigana dibdab muu arki doontid sultaankaaseeti tintaana kaa koosahaa meeshan oo igaaga tagaysaa guriga miisii joogaysid ogow qumayada Rapunzel ayay tinta ka jartay Rapunzelna aad ayay u ooysay kadibna meesha idil ayay ka saartay tuurka ayayna ku riday waa tahay fiiriya waa tahay meeshan ii sheegay dhaqsada waan dhuumanaynaa meeshaas ayaa ku dhuumanaynaa bal fiiri qumayada ayaa ku jirta kore aaway Rapunzel aniga ayada ma u jeediyey Rapunzel aniga waxaa rabaa inaan kor soo koro tintaada ii soo tuur si aan kor ugu soo koro waa khiyaano ka waran sultaanka wax dhan ma ogaasiya awo bal fiiriya maskiinka waa la khiyaanoyaa asigana wax dhan ma ogo aaway Rapunzel yaa tahay adiga maxaad ku samaysay tinteeda war adiga toqonaaba tahebe aqli dhan ma lihid ayada waa tuurkaa ku dhumiye weligaana ma adkaysid anigana tinteeda ka koosa tinteeda hata heesta mujeedidoo marka adigana meeshaas niinti ayaa kaa tuuraa indhoola ka dhiga weligaa indhoola ahaanaysaa meeshaanana kaa tuuraa ka waran hee inig miya khiyaanino hadda waa kashanaynahe adini iga tag wajiga iga doori qumayada sultaanku waxay ka dhigtay indhoolo kadibna waxay ka tuurtay taaladii oo Rapunzel
kadibna wuxuu bilaabay sultaanka inuu raadiyo Rapunzel. Duurka oo idil ayuuna ku wareegay. Rapunzel! Rapunzel! anaga asiga ma caawin karno laakiin waa tabaraacaynaa si aan u ogaano inuu fiican yahay in kale. haa midaas waa fikrad fiican. Rapunzelna ayadana meel cidla ayay iska joogtay, sultaanka ayayna raadinaysay. awo dunida sidaan miyaa u qurux badanta aniga ma ogeyn ka waran laakiin ii fiicnaan laheedaa sultaanka inaan helo markaas ay ii qurux badnaan laheyd. saacadda maxaa ku dhacooya sultaankeyga? yaa meeshaasi joogo? alamaya maxaa ku dhacay sultaankeyga aan jeclaa? Rapunzel waxay bilaaday inay oyso, kadibna ilinta ka socotay ayaa sultaanka ishiisa ku dhacday, kadibna indhihiisa ayaa u soo laabtay. Rapunzel, aniga waxaan rabay in adiga ku badbaadiyo, laakiin waxay u eg tahay adiga in anigii badbaadisay. qasrigeyga ayaa ku keenaa, waana iskuursanaynaa. Rapunzel iyo sultaankana way is heleen, wayna isku farxeen. ma aragtee waxaas? sixir ayuu ahaa ka waran. oo alla maxay wax qurux badan maanta dhaceen. hadda way is heleen, wayna iskuursanayaan. haa laakiin anaga ma sugi karni in arooskadu ka dhacaayo marka soo baxa fasaxeena qaadanaynaa. sheekadii Rapunzel meeshaasi ayay ku eg tahay. waad mahadsantihiin.